قدومي موسى بيحي موسى بيحي 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 بسم الله الرحمن الرحيم مدحوينها dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo ayaa maanta safar shaqo ku soo gaaray magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil madaxweynuhu isagoo gudanaya hawl maalmeedkiisa shaqo isaga iyo wafdi ballaaran uu hogaaminaya waxay saaka hiirtii hore ka soo kicitimeen caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa tani intii madaxweynuhu uu ku soo jiray safarkiisan magaalooyinka Berbera iyo Hargeysa inta u dhaxaysa waxa ku qaabilayay dadweynaha deegaamada iyo magaalooyinka kala duwan ee ku yaala eeriyada dadweynaha deegaanka ayaa madaxweynaha ku qaabilayay soo dhaweyn aad u sareysa waxayna ku soo dhaweynayeen calanka Soomaaliland iyo caleemo qoyan madaxweynuhuna isagoo ka dareen celinaya soo dhaweyntii diiranayd ay ku qaabilayeen dadweynaha deegaanadaasi wuxuu la qaadanayay socod luga oo ku maray gebi ahaanba goobihii lagu soo dhaweeyay sidoo kale madaxweynaha iyo waftigiisa oo imka ku sugan magaalada madaxda gobolka Saaxil ee Berbera waxay ku sugnaan doonaan magaalada Berbera waftigan madaxweynaha iyo safarkiisani wuxuu daaran yahay inuu madaxweynuhu u kuur galo xaaladaha kala duwan ee deegaamadan iyo gobolkan ka jira sidoo kalena wuxuu madaxweynuhu dirsayaa dadaalka horumarineed ay xukuumaddiisu ka wado deegaamada guud ahaan deegaamada Soomaaliland gaar ahaan deegaankan aynu saaka joogno madaxweynuhu wuxuu dardar gelin doonaa hawlihii horumarineed ee halka hore uga socday waxaanu aad iyo aad ugu mahad celinaynaa dadweynihii kala duwanaa ee tan iyo saaka madaxweynaha soo dhaweynayay maamulada tuulooyinka degmooyinka iyo maamulka gobolka Saaxil kan degmada Berbera iyo maamulka dekedaha Soomaaliland ee halkan fadhigoodu yahay aad iyo aad baa u mahadsantiin dhamaantiin bahda saxaafadda Soomaaliland ee ka hawlgasho gobolka Saaxil aad baan ugu mahadnaqay